بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقاليقة وإذي السلام ملكستا جوكتان وحرجانا إنا فرحة يا عافمات قبطان الله إذي سياديو انت حنوصانا يسان الله عافية انت عافمات قبطان الله السياديو حنونا ذا أدونك كجيرنا إله سبحانه وتعالى نقبت باديو وحينو وضع ما شاء الله قضى عافمات له healthy food جباتي براون ما شاء الله aan si fudud u hagaajinayo asxaabta isoo weydiisay burburon ma laga sameyn kara jabati canjeero dubisteeda waa dhib ma dhib badno asxaabteeda qaaliga ah hore waan usoo geliyay canjeerada brownka ah haddana waxaan idin soo gelin la wadaagi doonaa jabatiga insha Allah wax walba waa ka dhigi kartaa jabatiga burka isticmaalayo waa kaasa atamak one alaha flour waa burka brownka ah hatta asigoo half u yaala kaas waa idin tusaayo oo kaliya laakiin asagoo half ay yaalo halkan waxaan ku shubanayaa 2 koob qiyaasta rabtid ayaa isticmaali kartaa waa isku mid wax walba ka samaysan kartaa canjeera ka dubi kartaa mala waxa ka dubi kartaa jabati ka dubi kartaa pancake ka dubi kartaa adiga uun ay kugu xiran tahay waxaan isticmaalayaa saliid olive oil cusbo iyo waxa ku dar saliid olive oil bis waxa ku qasanaya biyo qandac xooga fiican قطع كلامه من وحيريس ووم واي من وحيريس كلال زائد واي مركا كلال زائد وحيريس واي كان زائد كيسان الزائد ما لكن وحير واي واسكو قصنا إن شاء الله قاندada marka sidaan ay suuq qaso ayaan gacanta si fiican ugu qaso doona insha Allah jilaac ugu kusoo baxayaa ma sha Allah kaal iska arag asaga ma ka jilicsan jabati kaleeto asxaabtida qaaliga ah waxyariis bur ayaan ku soo daray ma sha Allah markii aan soo qastay waxaan ku sokor ka soo marinayaa saliida burka brownka ah badanaa wuxuu u xirxiran yahay 2 kiilo asagana kala ah midna waxa lagu shiidaa qamadiga qoloftiisa midna qamadiga qolofta laga qaado midka qolofta lagu shiido ayaa wanaagsan caafimaad ahaan haddii aad isticmaalaysid asxaabta qaaliga jabatiga waan qastay insha Allah waxyar baad u soo laabanaya shaqayran soo qabsana insha Allah waxaan wayna 5 daqiiqo meelahaas 10 daqiiqo isoo yaalo ka bacda ayaan soo laabana insha Allah waan soo laabtay jabatigi asxaabtida qaaliga ah hadda waxaan bilaabay inaan fidsado waxa kale torbayna idin la wadaago si fudud oo round uga dhigaysid jabatiga haddii aad ugu dhibay jabatiga halka xabo aad u kuskuusaysid maanta dhan aska dhaafaysaa ku dhahe hal asaga dhan hal mar inaa wada fidisid roolkaada ka wada dhiganaysaa haraka dhaqso saxankaasaan soo diyaarsaday aan ku soo shubtay wax yar bur ah waxaan rabaa in aan saas ugu fidiyo asxaabteeda qaaliga ah asigoo sidaan u weyn ayaan saliid marinayaa kadibna waan jarjari doonaa insha Allah waxa dhan ma jirta bal isku shideenayo waqti badan ka qaadanayo fudeed easy ah saliid oliwada isticmaalaya haddii aad rabtid inaa weight loss gareysid ha isticmaalin saliid cadeeyda ayada dadka faadka u keento isticmaal saliidaha kaleeta ee aan faadka badan lahayn insha Allah saasa u duubanaysaa ujeedaan raawlki waa kaas saas uu kugu noqday ma sha Allah xabada labaad sidaas ayaa u jarana haddana insha Allah waqti dhan maba ka qaadanayo jabatiga dhan haddii xataa aan qaso kiilo saas le u wada fidiyaa because hal xabo waqtiga dhamaanayo haddii haraka kugu jirto sidaan le u fidsanaysaa ku dhahay kala iska arag waaye asxaabteeda qaaliga ah waan soo dhameystay wuxuu ahaa 6 xabo noqday 2 koob ee burka ahayd waxay ii noqotay 6 xabo insha Allah warka waxaan rabaa inaan soo saarto birta dabka inta isii kululaanayso hal xabo ayaa sii fidsana insha Allah halkaas xabo sii fidinaya fidis oo saaidana ma ka rabo jabatiga haduu qafiif noqdo uu adkaanaya haddii xataa si kasta u jilicsan laakiin jabatigana wax yariis waxa waaye oo qafiif saaid una ka noqonin birtan dabka soo saartay aan ku duba lahay insha Allah waan saaranaya birtu ay kulushahay
asxaabteeda qaaliga ah jabaatigii dubistiisii ayaan ku guda jirnaa. maasha Allah ujeedaan gaduudkaas quruxda badan ayuu noqonayaa maasha Allah. waxaan filayaa gabdhihii soo weydiiyey inay si fiican uga bogteen aadna uga heleen. waa kaasaa jabaati gaduud uu noqonayaa, waxba kama baryaaya jabaati cadaan ah. waa ujeedaan maasha Allah quruxdiisa mana isbedelayo, sidiisu ahaanaya ilaa iyo biri waa cuni kartaa, isma bedelayo, sidiisa ayuu ku ahaanaya maasha Allah jileeciisa. asxaabteeda qaaliga ah hadda waxaan wadnaa xabadii ugu dambeysay insha Allah. xabada markaa dhameysan waxaan soo karsan doonaa insha Allah dilaac bulaashkii lagu cuni lahaa. already ukunta biyaan kusii kariyey diyaar waaye, laakiin waxaan soo karsanaa insha Allah yaanyada kadibna sida isugu daraya arki doona insha Allah. waan ku darsaday saliida oo liliba, waxaan ku darsanayaa hal xabba basal weyn aan soo jarjaray. waxaa kaleeto haystaa yaanyo aan soo hoolay, 3 xabba yaanyo aan soo hoolay insha Allah. waan ku darsanaa markay basasha ii soo bedelmato kalarkeeda, waxaan ku darsanaa insha Allah basasha. haddii aa tahay qof hilib iska jaraayo asxaabteeda qaaliga ah waa ina iska ilaalisaa hilibka gaduudan, laakiin weekii hal maalin waa cuni kartaa hilibka gaduudan asigoo ah midka isteega oo aan cadiinta lahayn waa cuni kartaa weekii hal jeer, naftaha la casuumo hal maalin. asxaabteeda qaaliga ah haddii aa cuntid qudaar ayadaba kugu filan bacaloosha kuu buuxinaysa, waxbana ma uga baahanaysid maasha Allah. kaala iska aragna basasha way soo gaduudatay. hadda waxaan ku darsan doonaa insha Allah yaanyadii. yaanyada waa soo hoolay, geedka kaarootada lagu soo hoolaan kusoo hoolay ayadaan ku darsanayaa insha Allah. aan kusoo darsaday yaanyadii, haddaad rabto soo shiidi kartaa yaanyada sida aad jeceshahay. yaanyada intii soo shiilmanaysa yaanyada ayaan shaqo kale iska soo qabsanaa insha Allah asxaabteeda qaaliga ah. yaanyada kale ay soo shiilmato ayaa waxaan ku darsan doonaa insha Allah digirta cagaarka ah digirta kuskuuska ayaan ku darsanaa insha Allah. waxaan rabaa inay si fiican isugu soo bislaato. waxa kaleeto aan soo sameynaa insha Allah spice-yadii, xawaajigii, babriikihii, ukunta markaas biyahan kusoo kariyey waana soo fiiqay asxaabteeda qaaliga ah. xawaajiyada waxaan sameynaa insha Allah biyo yar oo qanta aan kusoo qasayaa, waa sii dhiganayaa markaas la rabaa inaan kor gab uga siiyo. waa xawaaji burbur, babriika yar, curry powder halaas isku soo darsaday iyo maraq digaag shiidnay. waxaan kusoo qasay biyo qandacay way isi yaala, halahaas leeba gab ku sii rabaa insha Allah asxaabteeda qaaliga ah. ukuntii waan soo jarjartay, waa ujeediin spice-yadii aan biyaha qandaca kusoo qasay korlee gab looga siinaa ku dheh. kaale iska arag maraq qatara meesha kasoo baxay, waa ujeedaan hal xabba barbaroona warwareeg usoo jaray. digirtiina way bislaatay maasha Allah. hadda kor waxaan uga dari doonaa ukuntii. kaale iska aragan ku dheh maraq yaroo waxa waaye borotiinkiisa iyo dhadhanaankiisa isku wato. kaale iska arag maasha Allah, maba uga baahnid bah waxba hilib, waa ka maarmaysaa hilib insha Allah. asxaabteeda qaaliga oo jeedaan maraqayna diyaarsaneynaa insha Allah. waa kaasaa salarkaas yara usoo diyaarsanaysaa galaaskaada cabitaanka dhaac. laakiin cuntada hal qof ma cuni rabtaya, waa la wada cuni rabaa. waa idin tusaayo oo keliya asxaabteeda qaaliga ah. jabaatiga waa kaasaa baroonka ah, xitaa caruurtaada waa bari kartaa cuntada baroonka ah si tartiib qasab ma ahan inaa hal mar guriga dhan cuntada aa ka bedeshaa, laakiin waa inaad tustaa cuntada aa cunaysid testigeeda, ma ahan waxyaabaha liinta iyo sanjabiilkii waxyaaba
waxyaaba isku qasiisid oo kale ilmaha siisid laakiin jabaatiga waa tusi kartaa canjeero brown waa uga dhigi kartaa si u testigarayaan waxa aan cunaysid maasha Allah ayagana hadhow ay ula qabsadaan waa idin mahad celinaa dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi